horta waxaan amar dheeray ahaayeen wiilasha waa 3 wiil oo soo dhalatay oo isku hooyo aabba wiil oo igana ka fogeyn oo qaraabada ayaa dib u imaaday marka Allah uu naxariisto leenahay qadartaan sida u dheertay waa gartay marka falka dhacay maxaa sababay wallahi ma sheegi karno dadka dad qaraabo ay ahaayeen wax u dhaxeeyo hoos ma sheegi karno ana kana qaraabada nahay laakiin arinta hoos u dhaxaysa hadda ma sheegi karo waa gartay qofka falka geystay muxuu ahaa askari oo hayo ciidamada ka tirsan sida laga sheegay haye ama furaasidaas u dhacay galabta 12 abaari 12 saac barkii u dhacay ilaa hadda ma la ogaaday waxa ay isku qabsadeen oo ay sababsadeen ma la sheegi karo ninkii la arko maxaafalka u geysatay ay arinta lagu sheegi karaa asagana uu cararay hadana wiilashii way dhinteen Allah u naxariisto saddexdooda waa gartay yaa la joogay markii falkan loo geysanayay marxuumintan meel garaash oo waxay ahaday oo baabuurta laga shaqeeyo ibna wiilal farsamo yaqaan ayuu makaanayeen ayuu shaqada hayaba loo imaado oo dad badan meesha joogeen oo asaas amar ku dhacay waa gartay askariga markuu falka geystay xaguu aad asagu marka oo cararay haye ilaa hadda ma la ogyahay meesha uu aaday ilaa hadda wali wax gacanta ku hay nolosha uu gacanta ku inamayna dheen waa gartay xaafaday wax ka dhaceen waxge وعلى قمري والعدالة قمري مولاها جاوت فصور جدك السجنين waayahay marka bal ka waran eheladi baatiin sidee falkan u dareemaysan dareen ahaan والله ودرنا حذلنا واحنا هذا كلام معهم وامر الهي كان waxaan ku sabrayna in ilaahay uu qadarto insan dhacdo Allah subhanahu wa ta'ala oo qoray haye marka lama amaanka ma la xiriirteen askarigan falka geystay bal in wax lagu raajo ama la soo qabanayo wala la xiriiray hadda CID aan joognaa meedadka qaarna waa geynay qaarna oo soo wadnaa dhamaantood ma hal mar bay wada geeriyoodeen markii rasaasta lagu furay mise qaar baa dhaawac ahaan loo qaaday labo goobtii ku geeriyootay midna in la qaado isbitaalka oo digfar ku geeriyooday haye digfar rajab dayfar isbitaalka rajab Erdogan waa gartay CID da hadda maxaa ka socday yaa idin yiri halka geeyo ciidamada amniga dhahan hal geeyo wiilasha qaar igo guru xaafada la geeyo la soo celiyay hal geeyo dhahan ciidamada CID hal geeyo